weligay kuma aanan fikirin 3 eray oo keliya gabi ahaanba nolosheeda in ay wax ka bedeli karaan, oo hata kama baqayo inaan qof walba u sheego midaas. dad badan ayaa weli fursad u helin in ay ku raaxaystaan xiriir sidaan u qurux badan. labadeenu waa inaynu xushmayno farxadda aan haysano. markii aan kula joogo, mar kasta waxaad iga dhigtay inaan dareemo caafimaad. xitaa mararka qaar jacaylku waa dhiirigeliye, marna qalbiga ayuu kaa jibiyaa oo wuxuu ku geeyaa sariirta. waxaasi oo dhan waan kula soo maray, waxaanan kartay inaanay jirin cid aad adiga iga jeceshahay dunida. ma filaayo inaan dhambaal macaan iyo erayo jacayl oo qoraal ah inaan ku soo koobi karo sida aan maqsuud kaaga ahay xabiibtii. ogow, waxaan kugu dhihi doonaa luqad kasta oo adduunka laga isticmaalo waan ku jeclahay, laakiin taas lafteeda kuma filnaan doonta inaan muujiyo inta aan ku jeclahay ee aan ku baahanahay adiga. hadda waxa ay ila tahay inaan u xubsiiban rabo hal naf oo leh 2 qaybood oo ka kooban aniga iyo adiga. nolosheena waxa ay noqotay mid isku xiran, oo marka qalbigaagu uu dareemo walwal, aniguna gariir ayaan dareemaa. erayadaadu waa ii naxariis markaad ila hadlayso. waxaan ku hami weynahay oo aan ku ducaysanayaa inaad adigu naxariis ka dareemayso dhambalkan adiga aan kuu soo duubayo.